haddii ciidan intaa la eg aysan saraakiil ku lahayn ciidamada xoogga dalka hogaamada ku jirin ka warrama dayac inta laga qabsan بكل احترام تعسي بان ربنا إن سونا جابسي detail aynu garin gudoomiye waa mahadsan tahay waxaan rabnaa annaga in aan ka dhawaajino حلوة احترامنا هرت مركو غوريسا ميسس كان قراعنين دد واوين باتيني تعسيين وهي دد بدن با غعنت تاغن خيل ما سو غابي فريسان ادو ما حسن nin meel joogay oo la yaabay reer xamarka bariga ayuu wuxuu yiri anigu waxaan la yaabay yiri dawladda Soomaaliya meel intaas oo qof ku dhimaatay bay oranayaan waa taxsiyad maaragtay loo taxsiyadeeyo tacsiyadeennu waxay noqotay mid runtii la dhihi karo inay fududaynaysaa in dadku iska dhintaan dadka mas'uuliyiinta ah haday maalin walba iska soo tacsiyayaan oo la yiraahdo Allah u naxariisto waa leenahay laakiin tan waxaan rabnaa inay ka duwanaato aan tacsiyayno markaan soo qabanno dambiilayaasha cadaaladana la horkeeno meeshay ka dhacday siday u dhacday waxa dhacay wax haba yaraatee laga tacsiyin karo oo laga gudbi karo ma ahan waxaan soo jeedinayaa koow maalin gaara in loo qabto arrintan guddoonka waxaan ka codsanayaa dhacdadan maalin gaara inaan u qabanno oo laga doodo labo waxaan soo jeedinayaa taliyaasha amniga in la keeno baarlamaanka hortiisa wiilasha Soomaaliyeed qarankii Soomaaliyeed bay ka baxeen waalidiintooda samir Allah ka siiyo laakiin in la iskala xisaabtamo saraakiishaas la weydiiyay shakhsiyan waxaan kaloo kamid ah maalin dhoweed baan meesha rabay waxba dhalinyarada meesha cabashiga keentay inaan tahay waa la soo diiday waxa la qof aan ballan ku lahayn ma tagi karo saraakiisha amarka noocaas bixiyay bal haddii xildhibaankii wasiir xataa uu tagi karin suu kan isqarxinay suu ku tagay bal taas nafteeda su'aalo u baahan waa in la isweydiiyo su'aalo badan baa ku wareegsan ficilka argagixisada ee dhalinyaradu ay ku dhamaadeen waxaa ka mid ah su'aalaha ciidanka halkaa ku xiraysan la keenay ciidan waxay ahaayeen tababaran oo dagaal adag la galay argagixisada oo awalba hawlgalka ku jiray oo shaqo fiican qabtay ayay ahaayeen sababta jidka dheer loo soo marsiiyay halkaa loo keenay oo jidka laftigiisu khatar kaga imaan karaan haddana loo dayacay oo loo dayacay su'aal weyn waxyaalahan la yaabay waxaa ka mid ah markii qaraxu dhacay warbaahintii qaraxa ka sheekayn jirtay kulligood kama hadlo in qof uu shir jaraa'id qabto oo la sheego mooyee wax warbaahina oo warbixin ka bixiyo yiri qarax baa Muqdisho ka dhacay ma jiro waa la baari karaa waa wax la yaab leh sida loo gaaray dhammaan wixii social media ahaa loo gaaray inay report gareeyaan ay report gareeyaan dhacdadaas weyn hal qof oo ka hadla loo waayay wax organisida markii hore laga soo shaqeeyay inay dhacaysana dad badan ogaayeen weyn sababtoo xataa markay dhacdo lagama gaaro in la dhaho report gareyn waa wax maalmo ka hor laga soo shaqeeyay waxaan rabaa inaan ku daro taas wax la baarayo waa in lagu daro saxaafadda sababta ay arrinkaas uga hadli waayeen si ay u fududaato si loo ogaado wixii waxaas ka dambeeyay sababta ay u aamuseen in saxaafadda la weydiiyo ka bacdi waxa la helaa raadkii oo sax ah intaas waxaan rabaa wax la baarayo in lagu daro su'aasha meesha taalla waxay tahay yaa la aaminayaa waddankeena yaa la aaminayaa sida hadda wax u socdaan haddii darawalkii iyo waardiyihii iyo macallinkii iyo dhakhtarkii iyo qof walba haddana ay saraakiishii marayso oo sida saxaafadda aynu ka arkaynay rag saraakiil oo sarsare ay eedaynta gashay xerada wax ka dhaceen iminka haddii inteenaan qaar ka mida aadaan ma geli karaan waxay qaadanaysaa saacado badan iyo mas-uuliyiin badan iyo meel walba in maxaan ku idhaahdaa ribood loo diro xildhibaan hebel baa taagan halkaas weeye kan weeye markaa kadib adoo lagu soo baadhay agashi marka aad fiiriso waa masiibada dhacday waxay u dhacday sidii loogu talagalay
meel la geli kara ma ahayn sida xildhibaan uu sheegay xidig waa runtiisa waa meel aad u adag laakiin waa la geeyey waa loo diyaariyey askartan meesha ku la-atay ama lagu xasuuqay waxay ku naxeen oo ay arkeen ninkan oo meesha ku soo socda iyagoo aan hub haysan cid hubka markaa xitaa isagii hub ama xabad ku rida ma jirin meesha hubba kama agdhoweyn si haddaad u fiiriso waxay ahayd qorshe shirqoola oo loo diyaariyey ahayd si uun baan rabnaa inaad soona gaabisid waa detail aynu garin gudoomiye waa mahadsan tahay